Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibada Maashil Media. The Jungle Book waa filim ka hadlaya cunug yar oo duurka ku lumay kadibna ay soo korsadeen xayawaanka yeeda wax ayuu la cuni jiray. Haddaba ma ogtahay in sheekadani ay si dhab ah u dhacday kana mid tahay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida ka dhacay. Muuqaalkeenan ayaan kaga hadlaynaa dhacdadaas oo dhammaystiran. Magacaygu waa Ayuub Cabdiqaadir. Haddaba si aan u bilaabo muuqaalka janalka haddaad ku cusub tahay subscribe saar, muuqaalkana haddaa ka heshay like saar. Mahadsanid. Soo dhawo muuqaalkeena maanta. Diina Sanjari sidoo kale loo yaqaano wiilkii yeeda ahaa waxa uu ku dhashay wadanka Hindiya. Diina waxa soo korsaday xayawaanka loo yaqaano yeeda, asaga ayaa quudin jiray sidoo kalena ilaalin jiray, hoy uu seexdana u sameyn jiray. Waxay ahayd sanadii 1872 markii ay qolo ugaarsato ah ay markii ugu horeysay duurka ku arkeen Diina Sanjari. Waxay arkeen asagoo afartiisa aadin ku socda ama u socda qaabka xoolaha oo kale, waxaana garab socday yeeda. Ugaarsadayaashii waxa ay isku dayeen in ay Diina ka soo kaxeeyaan laakiin umay suurtagelin. Wiilkii iyo yeedii waxay dib u gurasho ay ku sameeyeen god weyn oo duurka ku yaala. Ugaarsadayaashii hab walba way isku dayeen, waxa ay awoodi waayeen in ay wiilka yar ka kaxeeyaan, waxaana ka hortaagnaa yeygii. Markii dambe ayay ku qanceen godka, waxaana dib uga soo baxay yeygii. Isla markii uu soo baxay xabad ayaa ay ku dhufteen, meeshana ayuu ku geeriyooday yeygii. Wiilkii ayay duurka ka soo kaxeeyeen, waxaana ay keeneen xerada agoomaha lagu koriyo, waxaanay u bixiyeen Sanjari oo ah erey ka mid ah luqadda Urduga, micnihiisuna ay tahay sabti. Sababta ay sabti ugu bixiyeen waxa ay in maalintii ay duurka ay ka soo kaxeeyeen ay ahayd maalin sabti ah. Diina way ku adkeyd inuu la qabsado dhaqanka bini'aadamka. Dadkii korsiimadiisa qaabilsanaa waxay isku dayeen inay baraan sida loo hadlo iyo sida wax loo qoro, laakiin way u suurtoobi weyday. Kaliya waxa uu yaqaanay tilmaamaha ay xayawaanadu isku afgartaan. Sidoo kale waxa uu diiday inuu cuno cuntada la kariyey, waxaana uu cuni jiray hilibka qayrin. Diina sidoo kale waxa uu diiday inuu xirto dharka, waxaana inta badan isku dayi jiray inuu u socdo qaabka ay bini'aadamku u socdaan, maadaama uu markiisii hore uu ku socon jiray afartiisa aadin. Laakiin waxaa jirta hal caado oo Diina uu la qabsaday, taas oo ah cabista sigaarka, waxaana uu caadaystay inuu maalin kasta sigaar cabo. Diina xeradaas uu joogay waxa uu kaliya kala saaxiibay hal wiil oo asagoo kale ah, waxaanay noqdeen saaxiibo isjecel oo isdabeecad fahmay. Inkastoy Diina uu 10 sano la noolaa bini'aadamka, haddana wali isma bedelin qaabkiisii iyo shaqliyadiisii. Kii hore waxa la islahaa wuu hagaagi doonaa markuu ahaa da'da 18 sano jir. Dhererkiisu waxa uu ahaa 5 feet oo kaliya, waxaana uu lahaa ilko aad u waaweyn. Diina maadaama uusan jeclayn xeradaas, uu necbaa joogitaankeeda xeradaas iyo la dhaqanka bini'aadamka. Diina waxa uu geeriyooday sanadii 1895 asagoo ay da'diisu jirto 29 sano jir, waxaana uu u geeriyooday cudurka tiibishada. Taariikhda dhabta ee Diina Sanjari sidatan ayay ahayd. Sanadii 1967 ayaa filim kartoon ah lagu matalay nolosha, waxaana loogu magac daray The Jungle Book. laakiin markii dambe ayaa filimo, inkastoo noloshiisa dhabta ah iyo tan khayaaliga ah ee filimka lagu matalay ay kala fog yihiin. Insha Allah waa inoo muuqaalkan muuqaalka xiga. Saaxiibada ku xiran Maashil Media, haddii uu muuqaalka aad ka heshay noogu reeb commentiga.